eheladii dadkoodii qurgo-ay ee qaruxu uu leefay tacsi qiiro weyn wadata iyo ohin qubanaysa oon xanuunka kula qaybsado meediyuhu qaado iyo duco qalbiga ugu xasilo qaarka gubanaya oo beer qaboojiye oho qowl ah baan odhane allow qaarka geeridu ku timid ee ku dhaba waaye qabrigooda waa sicada qaadiruhu weyne kun yar dhaawacana noo bogsii boogaha qalane السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن ونحسن داوديال ميلول بواد جوكتان كنا سودو هذا channel كقرشة السريسة داوديال برامج كان وحاو كسابسين هاي قبي ديناعيب بدن تابانيو ولوغو برديقيو لوغو قبابينيو عيدا مدى لوغو ديري قلينيو بلشدا iyo dawladda guud ahaanba oo Abwaan Bashiir uu ka diyaariyay dhacdadii foosho xumeyd falkii lagu gumaaday shacab fara badan oo aan waxba galabsan oo shalay cadowgu ay ku qaadeen wasaaradda waxbarashada halkaas oo runtii dad fara badan ay waxyeello ka soo gaartay runtii dadkii ku geeriyoodana Allah u naxariisto dadkii dhaawac ka soo gaarana waxaan leenahay Allah u boogadhayo runtii dhacdadaasi waxay ahayd dhacdo aad looga argagaxay cadowguna waa la filayay in falal noocan oo kale ah ay ka geysanayaan gudaha magaalada Muqdisho iyo guud ahaan gobolada dalka maadaama awood xoogan shacabkii ay isxilqaameen dawladii iyo shacabkii iyo maamuladii iskaashanayo ay wiiqeen awoodii ay ku lahaayeen deegaanadii farakutiriska ay ku hareen runtii waxaad moodaa inay wiiqa ay isku dayayaan inay weeraro argagixisanimo ay ka fuliyaan gudaha dalka Soomaaliya hase ahaatee waxaa la sheegayaa in weerarkan uu ku soo aaday xilli muddo toddobaad amniga la sugayay magaalada Muqdisho wadooyinkeeda halbowlaha ah inay xirnaayeen hase ahaatee wixii xaq alla ka qoran lama celin karo balse bulshada Soomaaliyeed waxa ay muujinayaan inuu jiro gaabis dhanka mas'uuliyadii loo baahnaa ka hortagida falalka noocan oo kala ah ee lagu leynayo laguna xasuuqayo waxaan rajaynaynaa in laga hortago falalka noocan oo kala ah ee lagu gumaadayo shacabka laguna xasuuqayo dhimasho intaan nooga ekaato waxaan jecelnahay in goordhow la soo afjari doono guud ahaan gobolada dalka iyo magaalada Muqdisho deegaan walba aad ka soo jeedo in si nabadgelyo aad ku tagto ayadoo aysan wax cayayaana aysan jirin guud ahaan muxuu ahaa isha magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka Soomaaliya hore waxa loo yiri ay yaxtag eelan reeb hase ahaatee inaad ka feejignaataan oo aad ka hortagtaan oo iskaashataan sida haddaba loo wiiqa awoodooda in looga hortago falalka guracan ee ay ku xasuuqayaan lagu leynayo maatida inta badan ay fuliyaan sida looga hortagi lahaa in micnaha wada tashiyo iyo iskaashi laga sameeyo ayaa loo baahan yahay waxaan jeclahay inaan soo dhaweeyo Abwaan Bashiir bal waxa ay soo tarayay dhacdooyinka kala duwan ee lagu leynayo shacabka sidee u aragtaa waad maasantay walaalkay adduunka anigu intaan ku noolahay dhiig Soomaaliyeed in dhulka ku dhibco macnaha dhiig qof islaam ah marka iskor la yiraahdo xataa lama ogolo gaalka aan daalimka ahayn ama aan qaatilka ahayn kula dagaalamin dhiigis iska daa qof islaam haddana Soomaaliya way sii kala daran yihiin marka arrintan xanuunkeedu waxaan qiyaasi kar maaha sax waxaan ku cabiri doonaa aragtideeda sidii ay bulshada ugu taqaanay suugaantii halaburkii aan ku cabiri doonaa waxaan ku dhacday ummadana waxaan la wadaagayaa arrintaas xanuunkeeda iyo naxdinteeda إن شاء الله تعالى لكن وحاول قبوي قبوي الإعلاء ما جبته صومال ضد قبوي ضد وحاول والله اللي يعجن كرا لكن ما تشبه كران لما تبين كرا إحنا مثلا إن مردو ذلك حسلون لو صوت بالي دونه اتكستو خلق الجيل لسنا اللي يقول لسنا دونه وحسا أضو بشكل إسقاط إن معناها إسكو ضيّد يقدم بيعكت واحد مرين كران إن لسيمون قبل كانوا يقول شتى وحي إن قوم كسيم مرين دونه وحي marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed aan daawano gabaygan iyo ujeedku waxaan baarsan yahay haynoo dulmaro Abwaan Bashiir insha Allah bidnillah alkareem markaas gabaygan wuxuu gudihiisa waxa ku jira ilaa 5 qodob oo waaweyn qodob koobaad waxa weeye waa iska duco iyo in xaaladan alle naga saaraan ku jiro qodobka labaad waxa weeye Muqdisho iyo dhiiga qulqulaya iyo inayna u qalmin weerarada arxandarrada lagu soo qaaday qodobka saddexaad waxa weeye dibkii qaraxa laftirkiisii oo gaarus ku siiya meeshii soobe oo waa meeshii waagoor lagu rugmaday ku siiya oo si gaar iyadana u taaban doono qodobka afraad waa Soomaalida
say qarannimadeedii u burburisay kadib waxay isu geysatay iyo wax loo geystay صح qodobka shanaad ugu dambeeya waxa weeye oo gabagabada ah qodobka afraad isugu jira waxa weeye xogaa dhiirigelin ciidanka qaranka iyo gobolada Soomaaliyeed ee dagaalka ku qaaday gobolada ka socdo oo iyagana aan doonin in lagu daydo gabagabada oo ah rajada aan leenahay haddaan ka gudubno caqabadan maanta Soomaaliya aan hortaagan صح الله يودا قوة له قادره وينه adiga qorsheeyo u dhigay dunida qaab kaase kulli qalad Soomaalidu gasho loo qoraa jiray qarni rubici dhaaftay intaan qaabudanahay qarax iyo bugtiya weerarka lanagu soo qaaday ee qiil la'aan maatidii lagu qurgoynayo صح kuwa qiiqa nagu hurinayee qaranka noo diiday naga qabo Allah yooda qadiruhu weyne amiin muqdisho ay qannada aad qabtiyo cudurkan qaan gaaray صح qado iyo quraac cadow dhibku kaga dhigay quudka صح quudaha shisheeye la yimid qaraxa ciideena ciideena Soomaali qaar sheegta oo maankii laga qaaday oo shaar qariban loo xiro diinta ku qaraaban صح qablaha jannada doonaya ubadka qoorgooyay صح uma qalanti dhiigaaga oo ay sii qurquriyaan in mar dabinada ay qoolayaan aan qabtabin doono صح oo qumaati nabad loogu leeday beerka ku qabooji إن شاء الله بإذن الله الكريم masiibada qaraar ee kal hore sooba lagu qaaday صح qurgo dhimasho iyo dhaawici kuma ka qaar dhaaf haddii boogtii oo qoyan hadana weerar lagu qaaday oo waxay maqaala ah oo maqlay in ilmo yar laga soo kor qaaday oo hooyadii oo hooyadii ay geeriyootay askartu ay baafinayeen oo abaydin hooyadii la qalay meeshii laga qaaday صح oo dhiig mar kale uu qulqulay goobtii shalay qiiqday oo masiibo qaawan oo ku timid qaranka Soomaaliya eheladii dadkoodii qurgo'ay ee qaruxu u leefay tacsi qiiro weyn wadata iyo in qubanaysa oon xanuunka kula qaybsado meediyuhu qaado iyo duco qalbiga ugu xasilo qaarka gubanaya oo beer qaboojiye oho qowl ah baan odhanay allo qaarka geeridu ku timid ee ku dhaba waayay qabrigooda waa sicada qaadiruhu weyne kun yar dhaawacan noo bogsi boogaha qalanay Soomaaliya qiyaamahon dhicin bad qaran jab gaadheen qayrkiin waxaad uga hadheen waa qabxumadiin xornimadii intaad qaadateen way idinkii qalay qarannimadii baad daadiseen dhiiga loo qubay qabqabliya markaasaad qabiil baan la quusteen qarka baaba baad ugu jirtaan inaad qarsoontaan qaxarkii iyo dagaalkii wuxuu qaran jab ku geystay markaad madaxa kor u qaadi lahayd qoonsi baa yimid qolo nacib inaad muuqato nolosha ku quudin oo soo qaraabtay misana shaati qabadiina oo sida quraanka ilmaha baraya qoorgoynta oo qarax u yeerin sidoo aayad qoranayo oo qoom kasto adigu nacib ka bashadaal qaato qorshada nagu baabi'inayo ilbay noqdi markaan fahmnay qowleysatada damcu soo qaaday ee shacabku wada qiray waxay noo qarqariyaanba ee gees ka gees weerar qaran lagaga soo qaaday ee kii qarini jiray fahmeys garab qalaalnaaday qarqaryada markay qabatay ay talo qaraaraatay kulbadeer hay isku qaadeen sidii neef la qowracay wax kasto qaribi karahayaan qoobkooda marine quraanjada sideedii u gali meel walba qodane kala qaada shacab yaho indhaha oo qun ugu toosa qaribaada oo nala rabiyo diida qaran waaga qiil hadduu yahay maskuwe qoorta kala gooye qabsariya han aan yeelanayo nimila qaan gaadha madaxdeenu qowlkay dhahaan hore ha loo qaato diinta waxaan khilaafaynin aan fulina qowlkooda qaybaha bulshada dhiidiyay qoriga soo qaatay goboladana qaarkood ka shiday qoonta sixirkooda geesinimo qadarin weyn dadkaas waanu qirayaa hambal yaan qiyaas leh ku oran waad u qalantaan guuleysta inta kalena qaabkaas warmaha ha ugu qaateen qowleysatada waa inay qaabilaan duhure sakaraad qabjabay weeyo oo qoobka way marine qiilqiilka waa laga bixiyay qoorta kor u taaga boqolaha cabsida ay qodeen aasa oo qariya qooraansado meeshuu galo soo qabta oo sheega dusha bay inala qolo yihiin waase qoom kale qaarna waaba ajnabi ka yimid qaaradaha dheere quwadoodii maanta ay jabtay qabasho joogaanay hal qowracni geed kama guddo way qarqarayaanay inagoo qabweyn aan mar qura quusin oo jabino qarqarada dab aan kaga shiniyo holac ka qaaca weynba qoraansi wada batay aan ku dhabagoyno marka raadka qowleystada qarno muuqiisa aynu qaranka Soomaaliyeed qaab isugu duubno aynu ciidan qaran oo birlaba daafac laga quusto oo quwad la aan yeelanayo qalabkii loo baahdo sharafteeni boor baa qarshay aynu kor u qaadno oon cawaalaheeni qanaday guudka qabadsiino oon cawaalaheeni qanaday guudka qabadsiino oon waaqaali dihin ciiduye qodano beerteena oon badaha gaaska qulquli qalab ku soo saaro oon quruxdii Soomaalinimo daaha kaga qaadno waa mid aan arkin aan kaga bixi karo caqabadaha oo tan ugu dambaysa ka hadlaysa
marka dadka Soomaaliyeed fariinta hal abuurka qaybteedii dhinacaasaan u tacsidana sida xanuunka badan gabayga ku qeexay baan ula qaybsanayaa runtii abwaane inta badan runtii abwaane inta badan marka ay dhacaan ficilada lagu gumaadayo bulshada horey ayaa waxaad ka soo saartaa gabay aad bulshadii ku gubaabinayso dadkii wax ku soo gaareen aad ugu tacsiyeynayso isla markaana aad ku muujinayso tix sida aad ugu xun tahay sidee kugu suura gashaa inaad durba ka gaarsiiso gabayga gabaygu horta waa laba oo midna waa gola kafuul midna waa gabayga inta badan la soo qoro anu waxaan aad ugu fiican horta midka la soo diyaariyo haddana saasay tahay xaaladda markay dhacdo ay meel xun iga taabato oo dareenka Soomaalinimo wax u dhimayo sharafta Soomaalinimo iyo caqliga ama dhiigga shariifka ee Soomaaliyeed oo la banaysanayaan ama maati la dooxay oo la dhibaateeyaan iyo waxayna mudneen loo geystay waliba dad Soomaali sheegay inuu geystay adiga waxyaabaha dareenkayga taabta yaa ii suurtageliyay durba inuu dareenkaygu ka falceliyo hadba saameynta ay arrintaasi leedahay hadday saameyn yar leedahay waxaa laga yaabaa inuu dareenkaygu si saameyn yar uga falceliyo hadday saameyn weyn leedahay si saameyn weyn hadda insha Allah tacaala magaalo walba iyo dadkeeda magaalo walba dhibaato laga geysto iyo dadkeeda saas oo kale u baraarujinayna uguna tacsiyeynayna xanuunkan dadka Soomaaliyeed waan la qaybsanayaa meel walba way joogaan ma ahayn maanta mar kale soobe inuu laga ururiyo meedad iyo dhaawacyo iyo jilba go'ay runtii waa ayaan daro hore ayaa looga digay in cadowga markii la jibiyo oo awoodoodii la wiiqo bulshadii iyo muxuu ahaa ciidankii iyo dawladdii iyo maamulkii oo iskaashanayo deegaano fara badan markii laga xoreeyay waxaa jirta digniino fara badan oo soo baxaya taa uu ku aadan in cadowga ay bilaabi doonaan goobaha bulshada isugu yimaadaan masaajida suuqyada inay miinooyin ay ku xiri doonaan si bulshada ay u dhibaateeyaan loogana hakiyo cadaadiska weerarada muxuu ahaa sheeg lagu hayo runtiina taa looma hakan doono hase ahaatee bulshada Soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay inaad feejignaan dheeri ama muujisaan inaad la shaqaysaan ciidamada dhagar walba oo ay muxuu ahaa sheeg cadowgu ay qorsheeyaan in muxuu ahaa sheeg maadaama bulshadii adinku aad tihiin inaad aad soo sheegtaan meel walba oo isku dayayaan inay ka qowleystaan inkastoo wixii xaq alla ka qoran aanan marnaba la baajin karin haddana dadaala oo waxaan idin leenahay bulshada Soomaaliyeed dadka waxaan leenahay waa in la nooc in la muuqaalka inooga yihiin in la ruux ma dadkan waxa weeye inta Soomaalida la arka xataa waxa ka badan inta ajnabiga qaar Yurub ka yimid baa jira Yurub meel laga waayo gaal la dilo hadii jihaad la doonayo meeshu waxa loo nagu soo jihaad doonto waa fikir ka taaliftirkeeda isweydiin u baahan walaalahayga waxaan leeyahay Soomaaliyeed aan idin la qaybsanaynaa murugada arrintaas xanuunkeeda si weyn bi waliba noo taabanaysaa insha Allah tacaala waxaan ilaahay u booqday inta bugta sida gabayga waxaan ku sheegnay inta dhimatayna u naxariisto walaalka Cabdiqaadir bulshada Soomaaliyeed dhibka Allah ka dulqaado cadowga Allah ka qabto insha Allah maalin in cageena ku istaagno Soomaaliya nabada dalkoo dhan oo wada nabada ayaan Allah subhanahu wa ta'ala ka baryeena intaas ayaan jecelnahay barnaamijkii baroor deeqda xasuuqii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho falkii fooshi xumaa ee cadowga ay u geysteen dadkii ku sugnaa hareeraha wasaaradda waxbarashada dadkii waxyeeladu ka soo gaarteen runtii inta dhaawaca Allah ay noo caafiyo inta geeriyootana Allah u naxariisto ayaan leenahay tan iyo kulantideeni dambe oo bahda garashada sareyso idile sida ay nabadgeliyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh